السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshada sharafta mudan ee ku xidhan channelka maalmaal soo dhawaada. Maanta muuqaalkeenan waxaynu ku soo qaadan doonaa tugga indhoolayaasha. waa sheekafeeneed qiimo badan oo uu qoray Herbert George Wells. sheekaduna sidan ayay u dhacaysaa. kooxda Afroyaala oo Ingiriis ah ayaa tagay dalka Peru ee Latin America. waxa ay fanteen silsiladda buuraha Andes ee mara 7 dal ee Latin America ah. iyaga oo buurihii fuulaya oo fananaya ayaa si kadis ah waxa u siibtay mid ka mid ah iyaga. markii kooxda inteedii kale u soo degdegtay badbaadadiisa, waxay arkeen inuu ka dhacay hog weyn oo aan guntiisa la arkaynin. waxay aamineen inuu ninkaasi sidaa ku dhintay, sidaa awgeed hore ayay isaga sii socdeen. balse muu dhiman Nunez ee waxa uu ku beegmay caleemo iyo dhir kuwaas oo khafiifiyey dhicistii uu ku dhici lahaa dhulka. xoogaa ayuu yara suuxsanaa. markuu soo miiraabay ayuu kor u eegay hogga uu ku soo dhacay afkiisa. markaas ayuu yaqiinsaday inaan hoggan afkiisa la gaari karin oo uu yahay mid aad u fog. waxa uu xaqiiqsaday inay u dhammaatay oo uu halkan ku dhimanayo. markuu indhihiisii hoos u soo celiyey ayuu kayntii iska dhex marmaray. xoogaa markii uu socday ayuu maqlay hadal iyo dab baxaya. wuu ku soo dhowaaday. markaas ayuu arkay tuulo dhan oo meesha ka dhisan oo degan yihiin. aad ayuu u farxay oo waxa uu aaminay inuu dad helay oo u badbaaday. Nunez wuu soo socday isaga oo xanuun iyo jirro badan dareemaya. tuuladii markuu ku soo dhowaaday ayuu dareemay in wax khaldan yihiin. waxa uu arkay guryahoodu in aanay u dhisnayn sida guryaha caadiga ah ee la yaqaano, ee ay yihiin kuwo si bilaa nidaam ah u dhisan. waxaa kaloo uu arkay in guryahoodu aanay lahayn daaqado ama dariishado. markii uu dadkii soo dhex galay waxaa ku dhacday fajiciso iyo naxdin aan xad lahayn. waxa uu arkay in dhammaan dadka tuulada ku nooli ay indhala yihiin. Isbaanishku markii uu qabsaday guud ahaan qaaradda Latin America iyo gaar ahaan dalka Peru bilowgii qarnigii 15aad, ayaa koox dad ah oo u dul qaadan waayay dulmiga iyo xadgudubka Isbaanishka ayaa galay buurahan si ay uga badbaadaan tacaddiga iyo dulmiga Isbaanishka. iyaga oo halkaa ku nool ayaa waxaa ku soo dumay qayb ka mid ah buurihii ay degganaayeen, taas oo keentay inay ku dhacaan meel hoose oo aan cidina ugu iman karin. halkaas ayay kaga go'doomeen adduunka intiisii kale. cidina may ogayn inay jiraan, iyaguna kama ay soo bixi karaynin hadaanta ay ku nool yihiin. muddo markii ay halkaa iska degganaayeen ayaa waxaa ku dhacay xanuun indhaha kaga dhacay. daryeel caafimaad oo aan jirin awgeed waxa uu ku keenay inuu indhabeelo qof kasta oo xanuunkaasi ku dhaco. muddo yar oo gaaban ayuu xanuunkii ku dhex faafay ilaa iyo dhammaantood ay wada indhabeeleen. waxaa taa ka sii darnayd dhaxaltooyo ayay noqotay oo carruurtoodiina waxa ay dhasheen iyaga oo indhala. markii ay dhinteen facii hore ee indhabeelay, waxaa soo hadhay fac aan aqoonba indhuhu waxa ay yihiin. dhowr fac markii ay ka soo wareegeen waxaa kacay lod aan aqoonba u lahayn indhuhu in ay jiraan ama aan weligoodba maqal, waana kuwaas kuwa uu la kulmay ninkani. markii uu tuuladii yimi waa la soo dhoweeyey waana la maamusay. waxa uu xasuustay odhaahdii odhan jirtay qofka cawarani boqor ayuu ka noqdaa magaalada dadka indhahala. wuu farxay oo waxa uu iska dhaadhiciyey in dadkan uu ku kordhin doono aqoon badan oo ka maqan. waxa uu gudagalay inuu u sharaxo meesha uu ka yimi. waxa uu sheegay inuu socodkiisan hadda ka yimi magaalada Bogota, halkaas oo dadka indhuhu u fayow yihiin oo ay wax arkaan. markaas ayay mushkilad hor leh soo kordhay. maxaad uga jeedaa waxbay arkaan? ayay dadkii tuuladu weydiiyeen. waxa ay gudagaleen inay taabtaan wejigiisa oo ay gacmahooda ku baadhaan indhahan uu sheegayo. markay indhihiisii taabteenna way yaabeen. waxay u arkeen inuu ninkani leeyahay xubno la yaab leh oo aan hore loo arag. mar uu turunturooday isagoo oo soconaya, waxay isla qaateen in ninkani wax weyni ka sii yihiin. ninkan dareemayaashiisu way liitaan, waxyaalo aan la fahmaynna wuu ku hadlayaa. waxay go'aan ku gaadheen inay u geeyaan tuulada ninka ugu xikmadda badan. halkaas markuu arrin marayo ayuu garwaaqsaday in dadkani nolol mugdi ah ay ku nool yihiin, sidaas awgeed ay u arkaan isagu in uu yahay ruuxa ugu taagta daran dhexdooda.
dadkani waxay indhala'aanta iska dhexlaayeen muddo 15 qarni ah, taas oo ka dhigaysa qofka uga warrama in uu jiro adduun dadku indhaqabaan qof sheeko xariireed uga sheekeeyey oo kale. waxa uu dabagalay habka ay u nool yihiin. waxaa jira malaa'ig aad maqlayso laakiin aanad taaban karin ayay yidhaahaan, iyagoo u jeeda shimbiraha. wakhtigu waxa uu qaybsan yahay 2 qaybood, mid diiran iyo mid qabow. ka diiran qofku wuu seexdaa, ka qabowna wuu shaqaystaa. waxa ay u jeedaan ama sheegayaan habeenka iyo maalinta. wax kasta waxa ay ku garanayaan dhegahooda, way dhegaysanayaan. xataa iyagu waxay isku gartaan qofku marka uu soo socdo socodkiisa. sidaas si la mid ah waxa ay sankooda u adeegsadaan hab cajiiba oo la yaab leh. shaki kagama jirin Niyunes inuu soo gaadhay meeshii uu boqorka ka noqon lahaa. hubaal dadkan madax ayaan u noqonaya ayuu iska dhaadhiciyey. waxa uu uga sheekeeyey quruxda buuraha iyo qorraxda iyo gabadhacu ay leeyihiin. si wanaagsan ayay warkiisa u dhegaysanayeen, laakiin erey kamay qorin. inuu waalan yahay ayay u haysteen. waxa uu go'aansaday in uu tuso muhiimadda uu leeyahay arabku. waxa uu arkay nin lagu magacaabo Pedro oo soo socda. markaas ayuu ku yidhi, waxaa soo socda oo wax yar kadib idin soo gaari doona Pedro. idinku ma arkaysaan mana maqlaysaan socodkiisa fogaantiisa awgeed, laakiin anigu waan arkaa inuu soo socdo. shaki ayaa galay. armuu run sheegayaa. dhammaan dadkii waxa ay dhowreen oo sugeen imaanshaha Pedro, balse si kedis ah ayuu u baydhay Pedro oo uu waddo kala qaaday. waxa uu gudagalay Niyunes inuu uga sheekeeyo waxa guryaha hortooda ka dhacaya, balse waxay ka dalbadeen haddaad run noo sheegayso bal noo sheeg guryaha gudahooda waxa ka dhacaya. miyaanadna lahayn arag waa wax muhiima. waxa uu isku dayay inuu ka baxsado, balse waxa ay u qabteen habka indhoolayaashu wax u qabtaan ee baqdinta badan, taas oo ah inay dhegaystaan shabaqdiisa oo ay uriyaan hawada. kadib marka ay soo gaadhaan ay 4 koon intay ka istaagaan iyagoo oo gacmaha is haysta ay ku soo durkaan. mar labaad ayuu isku dayay inuu baxsado, waanu ku guulaystay, balse meel uu aadaamay jirin. kadib markuu maalin dhammaystiran ku jiray orod iyo gaajo aan kala go' lahayn, ayuu iskii ugu soo laabtay isagoo raali geliyey una sheegay inuu khaldanaa. iminkana uu garwaaqsaday inaana jirin wax indho ama arag ahi. dad qalbi wanaagsan ayay ahaayeen oo way cafiyeen. keliya Sibitor ama Jeedal ayaa lala dhacay, xoogaa shaqo ahna waa loo diray. intii uu tuulada joogay waxa uu ka helay gabadh qurux badan oo iyaga ka mid ahayd, balse iyagu may jeclayn gabadhaas sababtoo ah weji qorqoran oo aan lahayn laablaabad ayay lahayd. codkeeduna wuu dheeraa, suniyaheeduna way qorqornaayeen, taas oo micnaheedu ahayd inay u arkayeen inay ahayd gabadh foolxun. markii uu ninkii aabbaheed ka doonay gabadhii wuu u diiday, waayo wuxuu u arkayay inuu yahay ninkani mid ka duwan oo ka hooseeya bini'aadamnimada. balse gabadha ayaa jeclayd Niyunes, aabbaheedna dalabkeedii ayuu diidi kari waayey. sidaa awgeed waxa uu arrinkii u soo bandhigay guurtidii iyo odayaashii tuulada. udhiiba odayaashii xukunkoodii ayay ku dhawaaqeen. ninkani waxa uu leeyahay 2 walxood oo furan oo uu ku magacaabo indho. suniyihiisu way dhaqdhaqaaqaan. arrimahaas ayaana khalkhaliyey maskaxdiisa. sidaas awgeed waa inuu ninkani indhaha iska ridaa si maskaxdiisu ugu soo noqoto. markaas ayuu guursan karaa gabadha. qaylo iyo xanaaq ayuu meel isla taagay ninkii. way iska hadlayaan odayaashu. indhahaygana cid aan u sadqaynaya haba yaraatay ma jirto ayuu yidhi. balse gabadhii ay isjeclaayeen ayaa dhabtiisa isku soo tuurtay iyada oo ilmadu ka daadanayso oo leh, gacaliya maad iska yeeshid, miyaanad aayaheenna ka talinaynin? maxay kuu tarayaan waxaan la sheegayaa? jacaylkeenna miyay ka wen yihiin? sidaas ayaa indhala'aantu shardi ku noqotay inuu qofku ka soo baxo quursiga iyo yasidda oo uu noqdo bini'aadan la ixtiraamo oo qadarin mudan bulshadana ka mid ah. fakar badan iyo rogrogis kadib waxa uu aqbalay Niyunes inuu indhaha iska rido gacalisadiisa awgeed. salaad hore ayuu ka lahay si uu maalinkiisii u dambeeyey ugu soo raaxaysto indhihiisa. markaas ayuu arkay waagii oo dilaacaya, isagoo oo tuggii ay degganaayeen casaan hubiyey. waxa uu dareemay markaas inuu Niyunes gef weyn gelayo. webiyada, kaymaha, samada buluugga ah, xidigaha, qorraxda, sidee ayuu quruxdaas oo dhan ugu waayi karaa gabadh awgeed? sidee ayay ugu qanciyeen in araggu muhiimad aanu lahayn isagoo oo iyaga ka saxnaa? waxa uu isku sii daayey hoggii weynaa ee cirka ku shareernaa ee uu markii koowaad ka soo dhacay. maalinkii oo dhan ayuu korayay. gacmihiisu aad ayay u dhiigeen, midyihiisina way jeexjeexmeen. balse maalinkaa markay qorraxdu dhacday waxa uu ahaa mid ka fogaaday deegaankii indhoolayaasha, waxaanuu ka tegey isagoo oo dhoolla caddaynaya.
waqtiyo ayaa jira khaladku faafo oo afarta koone kaa hareereeyo oo uu noqonayo qofka saxda ku taagani sidii qof dhimbiil dab ah gacanta ku haya. waxa aad dareemaysaa qurbe iyo inaad tahay qof ka duwan dadka, waxaana laga yaabaa inay kugu ganaan waali iyo doqonnimo. waxa taa ka sii daran, waxaa laga yaabaa inaad leedahay mawhibo Ilaahay ku siiyey, laakiin bulshada kugu xeerani ay u arkayso nuqsaan kugu sugan. waxaa laga yaabaa inayna soo damartay, haddaanay weli ku soo marinna hubaal way imanaysaa, balse waxa aad nasiib leedahay haddaad aragto quruxda waaga soo dilaacaya oo aad garato qiimaha waxa aad sadqaynayso ama waayeyso. waxaa jiray nin dhakhtar ah oo ka shaqayn jiray goob caafimaad. waxa uu ahaa qof daacad ah oo shaqadiisu sida ay tahay uga soo baxa, halka dhakhaatiirta kale ay laaluush iyo istabamarin ku shaqayn jireen. dadka oo dhan ninkan dhakhtarka ah way la yaabi jireen, iyaga oo leh maxaa ninkan waaray ee uu sida dadka kale isaga qaadan waayey laaluushkiisa, ummaddana waxa ay doonayaan uu ugu fududayn waayey. laakiin markasta oo laaluush loo soo bandhigo waxa uu xasuusanayay sheekadan indhoolayaasha. waxa uu ogaa maalinta koowaad ee uu laaluush qaato inay noqonayso maalintii koowaad ee uu indhaha iska tuuray, intaa kadibna uu noqonayo muwaadin qiimo iyo qadarin mudan oo ku nool deegaanka indhoolayaasha.